garo gacal kala irdhoobiyo gobolaysi jecele golayaal bilaashiyo garwaadeeno badane. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داويال كسو دوادا اف سي تي في barnaamijka arrimaha dalka waxaan kusoo qaadanaynaa maanta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee guracan sida aadka u xun Soomaaliya lagu kala qaybiyay. dowladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqday ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay in la gudugalayo doorashada si markii loo fiiriyo ra'iisul wasaaruhu wuxuu kala qaybiyay dalka Soomaaliya kadib markuu yiri qayb kamid ah ayaa doorashada qabsanaysa inta kalena banaanka ay naga tahay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu Soomaaliya ka saaray Puntland, Jubaland iyo Somaliland asagoo doorashada ku soo koobay Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, gobolka Banaadir iyo Galmudug taasoo ay noqonayso in midnimada ummadda Soomaaliyeed uu kala dhantaalay oo waliba uu si aad iyo aad u ka dhantaalay ayadoo awal ay maqnaayeen maamul goboleedka Somaliland ay ka maqnaayeen hawada oo waliba dad aysan soo dooran oo halkan ku matalo ayaga soo xilqaamay ee Soomaaliya ku matali jireen Somaliland ayaa maanta ayagiina banaanka loo tuuray. waxa kale oo banaanka loo tuuray Jubaland iyo waliba Puntland arintaas oo ah maaragtay dastuurka in meel looga dhacay oo ah dambi laga galay qaranka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. waxa isweydiin mudan maxaa keenay in ay maskaxda farmaajo ku shaqeeyaan shan siyaasi oo uu asaga soo magacaabay madaxweyne farmaajo. haddaan ka soo bilaabo ra'iisul wasaare Roble oo ku hadlaya magaca madaxweyne farmaajo uu madaxa ra'iisul wasaare Roble uu ka dhex hadlayo haddaan si kale u dhiraano madaxweyne farmaajo ayuu ku dhawaaqay doorashooyinkii. waxa kale oo goobta jooga lafta gareen oo madaxweyne farmaajo uu keensaday madaxiisana uu ka dhex hadla mar walba. waxa kale oo goobta jooga madaxweyne Qorqor oo Galmudug uga dhigay madaxweyne farmaajo asagoo mar walba ka dhex hadla madaxweyne farmaajo oo ka dhex hadla madaxa Qorqor. madaxweyne farmaajo wuxuu ka dhex hadlaa oo kale madaxa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish wuxuu kale oo ka dhex hadlaa madaxa madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle Guudlaawe. dhammaantood waxay ku saleysan yihiin inay yihiin dad lagu sameeyay brainwash maskaxdoodana ku shaqeyso maskaxda farmaajo. farmaajo ayaa ka dhex hadla wuxuu farmaajo doonayay sameeyaan, wuxuu farmaajo u diray qabtaan, wixii ka soo horjeedana way mucaaradaan, difaaciisa ayay diyaar u yihiin. waxaa isweydiin mudan nimankaan ma waxay u shaqeeyaan qaran mise waxay u shaqeeyaan shaqsi. haddaan si u niraano nimankaan waxay u shaqeeyaan shaqsi, waxay u shaqeeyaan qof gaar ah danihiisa iyo rabitaankiisa sababtoo ah ayaga waxaa keensaday meesha farmaajo. shanta nin ayaa arkaysaan oo afarna ay isku beel tahay, midna uu yahay beel aan ka fogeyn beeshaas, madaxweynuhuna uu yahay beel kaleoo ka gaar ah. sida Soomaaliya wax u qaybsatay 4.5ka madaxweyne farmaajo iyo shantaanba isku meel kama soo galaan. afar ka mid ah shantaan nin oo ah Cumar Finish, Guudlaawe, Roble iyo Qorqor waxay ka soo wada galaan 4.5ka hal garab. lafta gareenna wuxuu ka soo galaa garab kale. madaxweyne farmaajona wuxuu ka soo galaa garab. madaxweyne farmaajo wuxuu ka soo galaa 4.5ka Soomaaliya wax ku qaybsatay garabka uu ka soo galo madaxweyne Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe. waxaa isweydiin mudan nimankay isku talada iyo isku tawfiiqda ahaayeen madaxweyne farmaajo waxay ahayd inay ahaadaan Deni iyo waliba madaxweyne Axmed Madoobe. maxaa kalifay inay diidaan talooyinka iyo arrimaha uu farmaajo wato Deni iyo Axmed Madoobe? maxaase kalifay in uu ka dhex hadlo madaxooda afarta madaxweyne iyo ra'iisul wasaaraha? sidaan la soconno madaxweyne farmaajo markii loo doortay xilka madaxtinimada Soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay inuu keeni doono ra'iisul wasaare ku hadla afkiisa oo isqaqabsi dambe aysan dhici doonin oo ra'iisul wasaare dambe oo maaragtay madaxweynaha isqabsada aysan dhici doonin.
taas macnaheeda waxaa aniga u fasirtay oo ahayd ra-iisul wasaare ku hadla afkaygan keenayaa markay tahay inay tahayba ra-iisul wasaare aniga aan ka dhex hadlayo oo aniga oo meesha taagana aniga laba noqonayo. hadda waxaan haynaa 6 farmaajo, 5 idiin muuqata iyo midka madaxtooyada fadhiya. 6daa farmaajo oo aan aragno waxay u shaqeeyaan isku si, waxayna ku shaqeeyaan midka 6aad oo fadhiya madaxtooyada. ma kula tahay marka 6 farmaajo in Soomaaliya ay hagi karto? ma kula tahay madaxweyne farmaajo inuu ahaado gudoomiyaha gobolka Banaadir, inuu ahaado madaxweynaha Hirshabeelle, inuu ahaado madaxweynaha Galmudug, inuu ahaado madaxweynaha Koonfur Galbeed, inuu ahaado ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, inuu ahaado agaasimaha nabad sugidda, inuu ahaado taliyaha booliska, inuu ahaado madaxweynaha Puntland, inuu ahaado madaxweynaha Jubbaland? ma aha sida Soomaaliya wax u qaybsatay hal qof inuu noqdo 1000 qof, inuu noqdo shacabka Soomaaliyeed oo dhan kaligiis, inuu qof walba uu noqdo, inuu ka dhex hadlo qof walba. macquul maaha. wadanku adduunyada waxaa lagu maamulaa wadatashi iyo dastuur, iskaashi, wadatashi. hal qof keliya haddii la yidhahdo lagu soconaya madaxiisa bohol baa laga dhacaya. waxaa kaloo cad inay tahay hal qof markii uu dadka o dhan ka dhex hadlo inay arrintaas ku bedelayso kelitalisnimo, dimuqraadiyaddiina meesha ay ka baxayso. sidaan la soconno brain wash waxa la yidhaahdo ayaa sanadihii 60maadkii ayaa waxaa ka jiray adduunka ay ku loolamayeen Ruushka iyo Mareykanka iyo dalka China in la sameeyo qaab maskaxda bini'aadamka loo kontrooli karo oo wixii lagu shuba kaliya ay sameynayso. arrimahaas waxaa ka shaqayn jiray saynis yahano u dhashay Mareykanka iyo Yurubta iyo weliba Ruushiyaanka iyo Chinese-ka. waxaa lagu guuleystay waxyaabo fara badan in la sameeyo. dad lagu sameeyey maaragtay experimentigaas, tijaabooyinkaas ayaa nool oo ka hadlay oo sheegay in maaragtay aada loo dhibaateeyey, kuwa dambana lagu guuleystay oo lasii horumariyey. ilaa ay hadda way jirtaa, laakiin waa sir qarsoon. ma dhici kartaa madaxweyne farmaajo inuu la shaqeynayo qolooyin kale oo u sahlaya dadka qaar inuu ku sameeyo brain wash. sida cad maanta waxaan haynaa 6 farmaajo oo ah midka runta iyo 5 uu asaga samaystay oo ka dhex hadlo oo ah speakerka. Soomaaliyana waxaa joogtaa xilligii doorashooyinka, waa la soo dhaafay xilligii doorashada ee baarlamaanka. bishii 12aad ee sanadkii hore 24keedii ayaa waxay ahayd in baarlamaanka Soomaaliya uu dhamaystirmo. ma aysan dhicin. madaxweyne farmaajo madaxa ayuu kaga taagan yahay ilaa hadda. 8 bisha February ee nagu soo aadan oo ay ka harsan tahay wax ka yar 30 beri ayaa haddana waxaa la doonayaa in madaxweyne la doorto. weli heshiis laguma aha doorashada Soomaaliya. wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu kala qaybiyo madaxweyne farmaajo oo uu awalay Somaliland naga maqnayd oo weliba dad matalaya nala joogeen. haddana wuxuu rabaa inuu Soomaaliya ka saaro Jubbaland iyo Puntland. waxaa isweydiin mudan inta soo harta ma matali kartaa Soomaaliya, mana loo aqoonsanayaa Soomaaliya. Soomaaliya xilli waxaa jirtay uu Allah u naxariistay Generaal Caydiid uu ka talinayay gaalkacyo ilaa iyo meesha la yiraahdo xuduudda Kenya ilaa iyo dhinaca kale xuduudda Ethiopia, Doolow, Beled Xaawo, Dhobley ilaa iyo Kismaayo iyo meesha la yiraahdo Ras Kamboni ciidamada USC Generaal Caydiid gacanta ku hayeen. saasay tahay markuu dowlad ku dhawaaqay waa la aqoonsan waayay maadaama ay ka maqan yihiin dhinaca gobolada bari iyo Sanaag iyo Sool iyo Somaliland ay ka maqan yihiin. dagaalna uu jiro, dadkana ay israacsaneen, waa la aqoonsan waayay. waa tahay mukulata madaxweyne farmaajo dowladda uu dhiso iyo doorashada uu galo in adduunka ay aqoonsanayaan iyadoo ay ka soo horjeedaan madaxweynayaashii hore Soomaaliya oo xamar fadhiya, iyadoo ay ka soo horjeedaan siyaasiyiin badan, aqoon-yahano badan ay ka soo horjeedaan. mukulata caqligaas mukulaya caqli shaqeynaya, laakiin caqligaas wuxuu macquul leeyahay oo uu maaragtay macquul leeyahay oo saxna uu leeyahay 5 farmaajo uu ka dhex hadlo farmaajo iyo farmaajaha saxda ah ayuu caqligaas macquul leeyahay. aan fiirino oo aan dhageysano bal hadaladii iyo qaabkii uu u soo jeediyey ra'iisul wasaare Roble in Soomaaliya la kala gooyo, hal garab ay noqdaan maaragtay dhowr gobol kaliya ay doorashada ku soo aroorto, gobolada kaleetana loo diido inay doorashada ka qayb galaan. bal aan dhageysano warkiisa.
بسم الله الرحمن الرحيم دمان شعبك الصوماليات waxaan rabaa inaan la wadaago in maalmahan dambe ay xukuumadda dadaal badan gelisay sidii loo xalin lahaa kala aragti duwanaanshaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee ay qabaan qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ka ra'iisul wasaare ahaan markii aan kalsoonida weydiisanayay golaha shacabka waxaan ballan qaaday inaan dalka gaarsiiyo doorasho loo dhan yahay oo jawi nabdoon ku qabsoonto kulankii aniga iyo madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye aan ku yeelanay magaalada gaalkacyo waxaan isla soo qaadanay inuu kaalin ka geysto wadahadallada lagu xalinayo tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland waxaa marar badan ku celceliyey in ay albaabadeedu u furan yihiin cid walba oo tabasho qabta aana diyaar u ahay had iyo jeer inaan tixgeliyo aragtiyada kala duwan ee la xiriira fulinta heshiiskii doorashooyinkii iyo habraacidii lagu heshiiyey sidoo kale socdaaladeedii aan ku tegey maamulada koonfur galbeed puntland iyo galmudug waxay qayb ka ahaayeen dadaaladii aan ku doonayay in dalka doorasho loo jiheeyo wixii tabashooyin ahna si xilkasnimo leh in looga wada xaajoodo shacabka soomaaliyeed waxaa maanta muhiim u ah in la xoojiyo dowlad dhiskooda iyo horumarka ay xaqiijiyeen sanadihii lasoo dhaafay si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka uga qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyadda loo sii adkayn lahaa sidaa darteed walaalayaal xukuumadda federaalka soomaaliya waxay go'aansatay in la guda galo hirgelinta doorashooyinka si aan wakhti kale looga lumin shacabka soomaaliyeed loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka ee lagu gaaray waa tahay daawadayaal sidaa arkaysaan ra-iisul wasaare roble wuxuu go-aan ku gaaray oo uu maaragtay usoo istaagay inuu caddeeyo in dalka la kala qaybiyey oo laga maarmo lagana gudbayo maamul goboleedyada puntland iyo weliba jubbaland iyo weliba dadka matala somalilan oo aan loo baahnayn sababtoo ah aan sidaa u leeyahay waxay tahay inaan loo baahnayn inuu afkiisa ka yidhaahdo muhiim maaha waxaa muhiim ah ayagoo leh war aan heshiino inuu yidhaahdo waa laga soconayaa macnaheedu waxa weeye marka looma baahna soomaaliya midnimadeeda ayuu maaragtay ra-iisul wasaaraha uu maaragtay ku dhawaaqay waxaana ka dhex hadlayay madaxweyne farmaajo oo gadaal fadhiya oo sidaan hore idinkugu sheegay waa waxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaaruhu waa farmaajo labaad aan dhegeysano qoorqoor iyo hadalkiisii aan dhegeysano bal waxaan rabaa halkan inaan ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan inta danaynaysa arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya aan kula wadaago howlihii u dambeeyey ee ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka aan wadnay muddadii u dambeysay ee ahaa xal u helista ama xal u raadinta kala duwanaanshihii ama tabashooyinkii ka soo laabtay heshiiskii doorashooyinka 17 September ku dhammaaday magaalada Muqdisho sidaa darteed waa muhiim in la helo macluumaad ama warbixin ku saabsan hawshii socotay muddooyinkan dambe sidaa la wada socotaan waxaa jiray wadahadallo ku saabsan xal u helista arrimaha doorashooyinka oo aan toddobaadyadii lasoo dhaafay ku tegey magaalooyinka gaalkacyo garoowe iyo muqdisho si la isugu soo dhoweeyo aragtiyada kala duwan ee laga qabo sidii doorashooyinka dalka hore loogu sii wadi lahaa aniga oo taas ka duulaya waxaan guddiga doorashooyinka heer federaal ka codsaday in ay muddo dib u dhigaan jadwalka doorashooyinka si fursad loo siiyo xalinta tabashooyinka ay qabaan dowlad goboleedyada puntland jubbaland iyo siyaasiyiinta kale intaas kadib waxaan wada hadallo maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland Siciid Deni iyo Axmed Madoobe saaxiibaday waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen
inaan ka wada shaqayno sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd wakhtigeeda. waxaan si gaara ugu mahad celinayaa madaxweyne Siciid Deni oo runtii ila qaatay amaan isla qaadanay xal u helista arrimaha lagu kala duwan yahay. hawshaas aan u istaagnay waxaan uga gol lahaa inaysan meel cidlo ku dhicin ama ku dhammaan heshiiskii doorashooyinka ee ku gaarnay Muqdisho 17 Sebtembar 2020 ayna ka sii horeeyeen gobashii ay reer Galmudug dhigeen Dhuusamareeb 1, 2 iyo 3. dareenkayga mas'uuliyadeed waxa uu ahaa mar walba inaan la xirin albaabka wada hadallada si niyad sami Soomaalinimo ay ku dheehan tahayna inaan u xalino tabashooyinka ka soo laabtay heshiiskii 17 Sebtembar 2020. markii aan madaxda Puntland, Jubbaland iyo dhinacyada kale asbuucii la soo dhaafay ku shirnay Garowe waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaaliya la wada socoto 3 ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka. kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo shir la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Roble. intaas kadib waxaan dib ugu celiyay madaxweyne Siciid Deni iyo madaxweyne Axmed Madoobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgoyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo dalkana ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta. waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo dhinacyadii kale ee dhexdhexaadinta aan halkan u imid iyo natiijadii wanaagsaneed iyo tanasulkii ay muujiyeen madaxda qaranka. waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed iyo inta doorashooyinka danaynaysa halkaan kala wadaago in dowlad goboleedka Galmudug ay samaysay intii karaankeeda sidii dalkan lagu gaarsiin lahaa. sida la socotaan wuxuu sheegay in maaragtay jawaab ku celiyey inuu jawaab ku celiyey dadkii soo diray madaxdii soo dirtay oo Garowe ka soo dirtay oo yiri waxaan qabnaa doodahaas qodobadaas waxa laga bedelo 3 bari 4 bari ay fadhiyeen meesha suu jawaab ugu soo celiyo jawaabtiisina waxay noqotay mid hadda arkaysaan oo ah jawaab u diray laakiin kama soo jawaabin jawaab muu soo celin waa been waxa la yaab leh inuu beenta noocaas oo sheego dadku way la yaaban yihiin laakiin lama yaabani sababtoo ah ninkan ma ahan nin asaga xor u ah aragtidiisa waa nin madaxa uu ka degay oo uu ka dhaxalayo madaxweyne Farmaajo sababtoo ah xilna muusa hayn wax jagaayo hayeen ma leh Galmudugna waxa geeyay Farmaajo wuxuu u shaqeynayaa Farmaajo uma shaqeynayo reer Galmudug uma shaqeynayo cadaadu ka soo jeedo uma shaqeynayo Dhuusamareeb uma shaqeynayo Hobyo uma shaqeynayo Gaalkacyo meeshii la yiraahdo Ceelbuur iyo Xaradheere iyo dhulkaas xeebta oo dhan waxa haysta nimankii nabadiidka maalina kama hadlo ciidamada meeshii difaaci lahaa asaga wardiye ka dhigtay asaga daba yaacayaan ma hadal maaragtay uu keenay Farmaajo dadkan inay u shaqeeyaan muuse keenin waa wuxuu soo doortay inay si musuqmaasuqa asaga ugu adeegaan waayahay waa mid kamid ah qorqor waxaan ku tilmaami karnaa mid kamid ah 6 farmaajo waxa weeye waxay kala yihiin farmaajaha caadiga ah taqaanaan waxa ku xiga ra'iisul wasaare Roble waxa ku xiga Laftagareen waxa ku xiga Goodlawe waxa ku xiga Qorqor iyo Cumar Filish
waa lixda farmaajo. hal farmaajoa taqaaneen, lix bay noqdeen sababtoo ah wax allaala waxa farmaajo uu rabo ayay u taagan yihiin, waxay ku hadlaan afkiisa. daminis waa asagii, hadday kula hadlaan farmaajoa kula hadlaya. afarta beri oo garowe shirkiga uga socday maamulada soomaaliyeed iyo dadka madaxda iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada waxay la shirayeen oo qoorqoor ayagoo aaminsan inuu yahay nin xor ah, ra'yigiisa xor u ah, maaragtay fikirkiisa siyaasaddiisa xor u ah ayay la shirayeen. laakiin ma ahayn nin xor ah, waxay la shirayeen farmaajo oo shape shifting isku sameeyey oo ah qoorqoor waxaa ka dhexalaya farmaajo. sidaa arkaysaan soomaaliya, midnimada soomaaliya qoorqoor wuxuu ka doortay farmaajo. run inuu sheego wuxuu ka doortay farmaajo. inuu galmudug u adeego oo rabitaanka reer galmudug uu ku shaqeeyo wuxuu ka doortay farmaajo. inuu shacabka soomaaliyeed dimuqraadiyadoodii iyo xoriyadoodii doorasho inuu burburto wuxuu ka doortay farmaajo. kulligood afartooda kale waxay ka doorteen, kulligood sidoo kale farmaajo ka doorteen. qoorqoor ha noqoto, lafta gareen ha noqoto, guudlaawo ha noqoto iyo rooble intaba. maxaa meesha ka cad? madaxweyne farmaajo markuu madaxdii sidaa u kontaroolayo, maamul goboleedyada haysatay oo ra-iisul wasaarihii uu kontaroolayo, xaggee joogaan ciidamadii? saraakiishii ciidamada xaggee joogaan? hala yaabin sarkaal ciidan oo qori la qasjac leh oo raba inuu siyaasi farmaajo kasoo horjeedo dilo. sababtoo ah nimankan shaqadooda siyaasiyiinta ah, shaqadooda waa inay siyaasad ay ku hadlaan. farmaajo siyaasadda usoo dhiibo ayay ku hadlayaan. laakiin askariga shaqadiisa waa inuu wax dilo. farmaajo shaqa hadduu u dirana waxay noqonaysaa inuu ku cadaabo askarigaas, ama uu ku dilo, ama wadooyinka kaa xiro, ama uu ku dhaawaco ayay noqonaysaa. marka waxaan kusoo koobayaa, wadanku wuxuu ku jiraa khatar. wadanku wuxuu khatar ugu jiraa, waxaa gacanta ku dhigay madaxweyne macangaga oo aan fikrad ka haysan nolosha bini aadanka, oo doonaya keliya kursigaas iyo wixii kale u qarsoon oo soo bixi doona aan sugayno. ninka intaasoo tilaabaa qaaday oo soomaaliya o dhan ka doortay rabitaankiisa, wax badan oo aan ogeyn ayaa jira. waxaa soo bixi doona arrimaha siyaasaddiisa gaarka ah oo uu damacsan yahay, waddanka ka damacsan yahay. waxaan ugu baaqayaa in soomaaliya ay u baahan tahay dimuqraadiyad, inay u baahan tahay xorriyad. waxaan ugu baaqayaa madaxweyne farmaajo inuu xorriyaddooda u soo celiyo guudlaawe, lafta gareen, qoorqoor, rooble iyo weliba cumar finish, inuu xorriyaddooda u soo celiyo si dalka ay ugu adeegaan si xora, dadka soomaaliyeedna ay ugu adeegaan si xora, ra'yigoodana ay u dhiibtaan si xora, maaragtay ay u noolaadaan si xora. ummadda soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay ka hortagaan madaxweyne farmaajo, una diyaar garoobaan siday u samaysan lahaayeen dowlad ay xor u yihiin, dowlad ka shaqaysa daacad dimuqraadiyadda, una adeegta si daacada. barnaamijka intaa ayaan kusoo koobayaa. aad iyo aad ayaa mahadsantihiin sidaa u daawateen. gurmo soomaalay gurmo gilgilo ku soco qaanka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga dhowr gurmo Somalay, 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 garadlay, garashada kallitay, gaygeeda oo xura, gumaysiga ka jecelay, Somalay, 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 danta garo. daawadayaal waxaan kaloo idinla socodsiinaynaa in aan soo gudbin doono barnaamijyo kale oo aada u qiimo badan. waxaa kaloo maaragtay idinla socodsiinaynaa
in aan u gudbin doono baaqaq fara badan oo ku socda dowladda soomaaliya iyo weliba shacabka intaba waxaan kaloo idinla socodsiinaa haddii aadmo in barnaamijyadu ay socon doonaan inta doorasho soomaaliya ay ka dhici doonto barnaamijka sheergareeya pagekana like hala saaro aad iyo aad waa mahadsantihiin godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay ketimira goyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadayo gardarada u hiishay go'dayo gam noqotay gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhiba